Maxay tahay sababta loogu dheggan yahay Kajol? Halkani waa deeqsame iyo anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Atariishada caanka ee shirkadda filimada Hindiya ee Bollywood-ka ee Kajol ayaa waxaa baraha bulshada lagu hadal hayaa hadal ay ka sheegtay waxbarashada hoggaanka dalka Hindiya. Hadalkan ayaa waxa uu dood ka dhaliyey baraha bulshada waxayna arrintu qaadatay waqti dheer, taasoo keentay in Kajol ay sharaxaad ka bixiso hadalkeeda. Dhab ahaantii shalay Kajol ayaa waxay la hadlaysay warbaahin ka mid ah kuwa Hindiya iyadoo markaa marti ku ahayd ka hadalka barnaamijkeeda soo socda. Intii ay saxaafadda la hadlaysay ayaa waxay sheegtay hadal ku saabsan mustaqbalka Hindiya iyo waxbarashada hogaamiyaasha Hindiya. Hadalka Atariishada kadib ayaa waxaa baraha bulshada ka bilowday dooda kulul, iyadoo dadka qaar ay si xun u dhaleeceeyeen, qaar badan oo taageerayaasheeda ahna ay sidoo kale taageereen. Maxay Kajol tidhi? Iyadoo la hadlaysay warbaahinta, Kajol ayaa waxay sheegtay in xawaaraha isbeddelku uu yahay mid gaabis ah, gaar ahaan waddan sida Hindiya oo kale ah, sababtoo ah weli waxaan ku dheggannahay dhaqankeenna, taasoo si toos ah uu ku lamaanan yahay waxbarashadeenna. Waxaan leenahay hogaamiyeyaal aan lahayn taariikh waxbarasho, ayay raacisay. Raalli ahow, laakiin waa inaan dhahaa qaar badan oo ka mid ah madaxda ina xukumaysa ma laha aragti ka timid waxbarashada. Waxaan filayaa in waxbarashadu ay ugu yaraan siinayso fursad lagu arko aragtiyo kale. Waxay la kulantay aftaradda dhaleecayn baan oo ku saabsan hadalladeeda, waxaana loogu yeeray ruux ka saafiday iskuulkii meelaha qaar, halka qaar ka mid ah isticmaalayaasha ay dhaleeceeyeen dhammaan dadka ka soo aflaxay shirkadaha filimada. Dhaleecayntaas oo dhan kadib, Kajol ayaa hadalkeeda caddaysay oo ku soo qortay Twitter-ka warbixin ay kaga hadlayso oo keliya muhiimadda ay leedahay waxbarashada. Waxay qortay, waxaan ka hadlayay waxay ahayd waxbarashada iyo muhiimaddeeda. Ujeeddadaydu ma ahayn in aan hoos u dhigo hogaamiye kasta. Waxaan leenahay madax waaweyn oo dalka ku haga tubta toosan. Maxay dadka isla dhex marayaan baraha bulshada? Mid ka mid ah aasaasayaasha warbaahinta Alt News, Maxamed Zubayr, ayaa la wadaagay dadweynaha muuqaal ka mid ah hadalka Kajol, wuxuuna qoray in iyada, Kajol, aysan cidna magacaabin. Laakiin dad badan oo daacad u ah ay hadalka Kajol ku macneeyeen mid ixtiraam darro ku ah hogaamiyahooda ay jecel yihiin. Waxaa la qaatay Maxamed Zubayr oo qoraalkiisii watay muuqaalka oo uu soo geliyey bartiisa Twitter-ka. Dadka ayaa waxay bilaabeen inay si kajin leh u qiyaasaan hadalka aktaradda iyo waxa uu tilmaamayo. Qof ayaa qoray in aan la garanayn cidda dhabta ah ee hadalkan loola jeedo. Suxufiga Swati Chaturvedi ayaa la wadaagay warbaahinta India Post-Ray, wuxuuna qoray in ciidanka mudi ay caddeeyeen in Kajol ay bartilmaameedsanayaan. Maxay ugu malaynayaan in mudi keliya aanu waxba baran? Weriye hore oo lagu magacaabo Anu Sehgal ayaa qoray in Kajol aanu hadda kadib taageeri doonin. Weriyahan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in iyaga lafteeda waa Kajol ee inay tahay sagsaag, ruux edeb daran, qaraabo kii lagu shaqaaleeyey, xaas jilaa, nasiib wanaag waxay noqotay xaaska jilaa Ajay Devgan. Waana inay dhaliishaa madaxda. Isticmaale lagu magacaabo Neemu Yadaf ayaa sawirrada Kajol iyo saygeeda Ajay Devgan la wadaagay ra'iisul wasaaraha Hindiya, Narendra Modi, wuxuuna u qoray sida tan, tani waa Kajol, Atariishada Bollywood-ka. Waxaa lagu soo warramayaa inay hormuud ka tahay taageerada BJP. Iyada iyo ninkeeda ayaa had iyo jeer la dhacsan Modi iyo hoggaankiisa. Laakiin shalay waxay tidhi, waxaa ina maamula madax aan aqoon lahayn oo aan aragti lahayn. Kani waa weerar toos ah oo lagu qaaday Modi. Qof walba waxa uu guntaday inuu yidhaahdo Atariishada Kajol ma dhammayn waxbarashadeeda, waxaana filayaa intaasi tahay sababta keliya ee ay u malaynayso in hogaamiye aqoon leh uu dalkeena wax tari karo. Heerka aqoonta ee raja. Madaxa Delhi ahna hogaamiyaha xisbiga Aam Aadmi, Kajol, ayaa ku dhaleeceeyey ra'iisul wasaare Narendra Modi bilihii la soo dhaafay inuu ku adkaystay dadka hoggaanka ku soo baxaya inay noqdaan xubno aqoon leh, wuxuuna si istaba joog ah uga sheekeeyey sheekada ninka la yidhaahdo Jyotibas Raja. Wuxuu dhaleeceeyey Narendra Modi isaga oo aan magacaabin, wuxuu oo su'aal geliyey heerka aqoonta iyo waxbarashadiisa. Mar sii horaysay, xisbiga Aam Aadmi ayaa sidoo kale su'aalo weydiinayey oo dhaleeceeyey shahaadada ra'iisul wasaare Modi ee arrintan, iyadoo ra'iisul wasaaraha uu shahaadadiisa soo bandhigay
dhowr jeer xisbigiisa gudihiisa